haweeneydani waa mid aragga naafo ka ah balse isla iyada ayaa ku guulaystay tartan cunto karin ah waxayna karisay cuntadan iyada oo aan arkayn. haddaba sidee ugu guulaystay tartanka cunto karinta haddii aysan arkayn waxa ay karinayso? sideese ayay u adeegsataa mindida marka ay wax karinayso? magaceedu waa Christine Ha, waxay ku nooshahay gobolka Texas ee dalka Mareykanka. sanadkii 2012 ayay ku guulaystay tartan cunto karin ah oo uu soo agaasimay Master Chief oo ah TV qabta tartanka cunto karinta ee gudaha Mareykanka. Christine waxay jeclaatay karinta cuntada iyada oo yar, balse kadib qiyaastii da'da 20-yada waxaa ku bilowday inay weyso araggeeda. wax kasta oo ay taqaanay ayaa isbedelay oo ay qayb ka ahayd riyooyinkeeda. waxay dareentay murugo iyo ka xumaansho xaaladda ay gashay iyada oo ka walwalsanayd ujeedkeeda nolosha sida uu noqon karo. waxay isku dayday inay la qabsato nolosha ay gashay iyada oo bilowday inay dib u barato wax kasta, sida qaabka loo socdo, habka akhrinta iyo sida wax loo kariyo iyada oo aan arag. laakiin waxay go'aansatay haddii aysan waxba arkayn inay barato sida wax loo karsado iyada oo adeegsanaysa dhadhaminta iyo shanqarta. waxaan rumaysanahay in luminta ama weynta araggayga uu ka dhigay dareemayaasheeda kale ee afarta ah inaan diiradda saaro. sidaa darteed markii aan dhadhamiyo raashinka wax badan ayaan dareemaa farqiga u dhexeeya habdhadhanka, heerkulka, taabashada iyo noocyada ay ka kooban tahay qudaarta aan isticmaalayo. dabcan waa wax adag mar walba oo wax karinta laga hadlayo, kumana jirto marka ay tahay qof araggala, waayo adeegsiga shayada iyo qalabyada kala duwan sida mindiyaha iyo biyaha kulul waxay halis ku noqon karaan noloshaada haddii aad araggalaadahay. laakiin iyada ahaan waxay sheegtaa inay tahay qof taxadir badan, si huban u adeegsata qalabyada halista ah iyada oo mid walba oo ka mid ah walxaha ay karintu u adeegsato ay ugu jiraan qaanado gooni ah, welibana ay u yaalaan qaabka kala horeynta alifbeetiga ah. waana habkan sidii ay ugu guulaystay inay cunno kariso, welibana aada u macaan. halkaas kuma joogsan, waxay go'aansatay inay ka qayb noqoto tartanka cunto karinta iyada oo ku galaysa jiko aysan ku shaqayn abid, lana tartamaysa dad wax arki kara. qabanqaabayaasha tartanka ayaa kadib dhegaysiga sheekada nolosheeda waxay ugu yeereen inay kusoo biirto tartanka maadaama ay tahay wax adag in kuwa araggala ay iskood isaga filnaadaan wax karinta. fariinta nool ee ku jirta qisadeeda ayay ku sheegeen inay dhiirigelin iyo kalsooni buuxda siinayso dadka ku nool dunida, gaar ahaan Mareykanka. Christina waxay ogaatay in arag la-aantu inaysan qofka marnaba ka hor istaagi karin gaaridda iyo xaqiijinta yoolka uu gaaridiisa uu dagaalamayo. ugu dambeyntii waxay xaqiijisay midaas, waxayna ku guulaystay tartanka cunto karinta, waxayna noqotay gabar rikoor cusub ka dhigtay dunida hal abuurka. tan iyo markii ay ku guulaystay tartanka, Christine waxay furtay 2 maqaaxi iyada oo qortay buug ka hadlaya habkarinta wanaagsan ee cunnada, waxayna dunida ka noqotay qof caan ah sababta oo ah ma aysan ogolaanin in arag la-aantu ay ka hor joogsato inay dunida wax ku soo kordhiso.